maalin walba dhagaxumo ma maqli karno qof kasta oo xuduudda gooya oo sharciga Puntland ka tallaabsada dawladdu waxay ka qaadi doontaa tallaabo iyadoo ciidamadeedu ay maqlayaan sharciga sarreyn doona cidna ku xadgudbi mayno insha Allah waxaan u sheegaynaa cadow kasta oo soo hawaysta Puntland inuu casharro lama ilaawaan u arki doono haddii ilaahay dawladda madaxweyne xasan sheekh oo hadda hogaamiyo waxay ku sifowday kala irdhaynta iyo burburinta shacabka iyo dadka Soomaaliyeed aboodfalkii ay ka geysatay Jubbaland iyo deegaanka Raskamboni iyadoo dagaal furinta ka furan yahay ayay waxay u daadgureysay ciidamo waxay samaysay sharaf dil waxa ay kaliftay in ciidamadii Soomaaliyeed ee calanka Soomaaliya huwanaa ay u cararaan dal kale oo shisheeye ah isu dhiibaan iyagoo bangalyo raadinay